murtida maanta gabban yaqaan gaashaan qabadka laga gartaa garaadka aadanaha ku uuman waxa xag ilaah looga tusaaleeyaa wixii cilmi ka diimoon iridaha marinkiisana waa loogu iftiimiyaa waxna loo gaadiidsadaa laguna gaaraa waxbarashada ee ilwaadeeda loogu adeegto wixii nafta danaynaya iyo guud ahaan horumarka aadanaha dunida kolkaasa qof qoys iyo ummad ahaanba lagu dadaalaa aaye wanaagsanna lagu doonta ha yeeshee waxaa ka mid ah aadanaha iyo dabeecadiisa dar waxbarashadaas doorka ah ka damiinooba een qaayadeedu maskaxdiisa u daadegin iyo mid ka abaaldaro kas iyo madax adkaan uga indha damuuqsada ee dowgeedii ka duwa hawraar murtiyeedan oo cilmigaas laga garanayana waxaa laqbaheedu u kala guran yahay ruuxii yaqaan gabbashada oo ka mid ah tabaha dagaalka waxaa lagu gartaa sida uu u hanaansado gaashaanka oo ka mid ah qalabka dagaalka iyo sida ay gacantiisu u rogrogayso hawraartana waxaa lagu bixiyey loogana mahmaahay hidde laga sargoostay geesiyaashii Soomaalida hore oo si xoog leh ugu tababaran jiray dagaalyahanimada iyo u gaashaan dhigidda cadowga tirana aan lagu gabangabayn karin gembiyaashii ay kaga guulaysteen gaashaan qabadnimo lahaantooda dulucda murtiduna waxay ku gunaanadan tahay in qofka iyo wixii uu garanayaa isgarab socdaanoo uu fagaaraha uga qiimo gelayo gabban yaqaan gaashaan qabadka laga gartaa murti maraxsigeedu waa nin iyo maankiye sawtani uma eka mid ka warsheekoonaysa kooxaha shaqeeyee ku kala jaadan qaybaha qaranka iyo degmooyinka dalku uu ka kooban yahay kuwaase markii loo kulmo hawl wadaagid laysu kaashanayo lagu kala soocmayo karti kala badnaantiyo hadba sidii loo kala weeleeyey kasmadii dadweynahe la furfuray iyo tusaalooyinkii horu socodnimadee hanuunin joogto ah lagu kaahiyey tilmaamahaasi si sahlan loo arki karo mahaddoodiyo ammaantoodana kii lahaaday heli karo gabban yaqaan gaashaan qabadka laga gartaa aan dhan kalena ka miisne haddii ruux loo dhiibo jago maamulkeed asi nafsadiisa ay ku dheehan yihiin wadaniyad daacadnimiyo waxa ay intuba ka muuqdaan qababaalkiisa iyo qaabka uu wax u wado xilkiisana dimindaabiyo uma qariyo jaalayaasha hawsha la qabanayaana ma qoonsadaan qiimihiisuna ma muuqan waayo murtidan baa inoo aqrisay mid kalena waxay ahayd madiyi isma yeesho oo macnaheedu yahay ma caana yarayso